Inta la og yahay 4 qof ayaa ku geeriyootay halka 8 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Muqdisho shalay galab abbaare 4:15 galabnimo sida ay sheegeen booliiska iyo goobjoogayaal. Qaraxa ayaa waxaa fuliyay qof isku soo xiray walxaha qarxa kaasi oo beegsaday dhalinyaro ku sugnaa maqaayad ku taala isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho. Ciidamada ammaanka ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay waxayna halkaasi ka bilaabeen baaris ay ku doonayaan inay ku ogaadaan raadadka qofkii isqarxiyay. Musiiba ayaa ka dhacday halkan, darbiga ayaa nagu soo dumay, qoyskayga dhibaato badan ayaa ka soo gaartay qaraxan. 4 xubnood oo qoyskayga ka tirsan ayay wax gaareen, 2 wiil oo ila dhalatay oo yaryar, adeerkay iyo wiil abtigay u dhalay ayaa ku dhaawacmay, ayuu yiri goobjooge la hadlay BBC-da. Magaalada Muqdisho ayaa amnigeedu u wanaagsanaa toddobaadyadii la soo dhaafay, balse waxaa ku soo badanaya magaalada dadka isku soo xiraya jaakadaha ka samaysan waxyaabaha qarxa iyaga oo beegsanaya shacabka iyo ciidanka dowladda. Ilawareedyo kala duwan oo ay ku jiraan ehelada Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuumansuur ayaa xaqiijiyay in maalintii labaad oo ku beegneyd shalay uu cuntada ka soomay Abuumansuur oo muddo 3 sano ah u xirnaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Yuusuf Xasan Mursal oo qaraabo dhow la ah Abuumansuur sidoo kalena ka tirsan mas'uuliyiinta xisbiga amniga iyo cadaaladda ee uu hogaamiyo Sheekh Mukhtaar ayaa ka waramaya sida ay xaaladda sheekhu tahay, waxaana yiri sida tan. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Maqribkii ama fiidnimadii caawa ayaa waxay soo gaaray in Sheekh Mukhtaar Roobow Cali oo muddo 3 sano u xiran dowladda federaalka ee u afduuban magaalada Muqdisho uu ka soomay cuntadii ilaa shalaytii Khamiistii sida uu guriga u soo xirtay uu diiday inuu furo isla markaana uu iska diiday inuu banaanka soo baxo oo cuntadii cuno laga soo bilaabo shalay subaxii ilaa iyo saacadan aan kula hadlay la joogo. wararka aan ka helayno guriga uu ku xiran yahay Sheekh Mukhtaar Roobow waxay sheegayaan inuu cuntadii diiday oo uu ka soomay. Sababta keentay ama ku kaliftay ilaa iyo hadda ma ogaanin, inkastoo aan ku daba joogno inaan ogaano haddii ay beedmo. yaa soo wariyay marka oo idin sheegay ilaa shalay ilaa maanta inuu cuntadii ka soomaya? sida aan la socotidba Sheekh Mukhtaar wuxuu sanadkii 3aad u xiran yahay dowladda federaalka, weligiisana ma uusan helin aalad isgaarsiineed oo lagula xiriiro. hase ahaatee waad ogtahay oo Soomaalidu isma moogana way ishelaysaa si kastoo ay isku hesho ayay wararku ku helaysaa. dhowr jeer ayaa Sheekh Mukhtaar laga soo waramay inuu xanuunsan yahay, inuu isbitaal dalbaday, inuu cuntadii ka soomay. intaas annaga waan la soconay oo waan ogaanaynay si kastoo aan ku ogaanaba. marka arrintani waa xaqiiq jirta laga soo bilaabo shalay Khamiistii subaxnimadii ilaa iyo saacadan aan kula hadlayo waxaa lanoo xaqiijiyay in Sheekh Mukhtaar uu diiday inuu cuntadii cuno. laakiin yaa wey marka cidda idin xaqiijisa? ma dowladda, ma ciidanka ilaaliyo la joogaa, ma qolo kale ay cidda idinkaga soo warantay idin tiray waa sooman yahay ama cuntadii buu diiday? yaa wey ma rabo inaan halkan ka sheego cidda ama soortiga warka noo sheegtay, laakiin dowladda nooma sheegin, weligeedna kama hadlinba xariga ama afduubka Sheekh Mukhtaar ay ku hayso. laakiin waan helnay waa ilo aan ku kalsoonaan karno oo maxay ahayd ku dhow Sheekh Mukhtaar Roobow iyo halkuu ku xiran yahay. marka laakiin uu nool yahay waa idin la xaqiijiso mar haddaad leedahay qolkiiba u xirtay ma ka soo baxayo, dad lama hadlayo, ma caafimaad qaba noloshiisa kale oo xog ma laga hayaa? hadde qolkiisuu ku jiraa. habeenkii Khamiista siduu qolku u galay quraacdii markii loo garaacay buu diiday inuu u soo baxo oo cuno. maxay ahayd ilaa iyo haddana wax ma cunin sida lanoo sheegayo, qolkana kama soo bixin. hadde ma ogin gudaha waxa ku haysto xaaladiisa caafimaad iyo sida ay tahay,
inkastoo muddooyinkii ugu dambeysay ama 4 bilood ugu dambeysayba wararka aan helaynay waxay sheegayeen in xaaladda nafaqada ama cuntada ama biil maalmeedka guriga uu ku xiran yahay ama ku afduuban yahay Sheekh Mukhtaar ma ahayn mid hagaagsan ma ahayn marka haddana waxaa lanoo xaqiijiyey inuu cuntadii diiday intii yaraydoo halkaa maaragtay ii sheeg ay ugu karinayeen maaragtay kuwii ka agdhowaa wuu iska diiday inuu cuno sababta u kaliftayna weli ma cadda khamiistii ilaa hadda guriga ku jiro oo dhaxda ugu xiran kama soo bixin miya sida aan ku helnay fiidnimadii caawa warka aan ku helnay guriga qolka uu qolkiisa jiifka hoosta ayuu ka soo xirtay ciddii u garaacdayna wuu ka diiday inuu u soo baxo cuntadana wuu diiday inuu cuno ma cunayo ayuu yidhi intaasaa dadka ugu wardambaysay waxaana ogaanay inuu cuntadii diiday qolkaa ku jiro sidaas darteed waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo wax kasta oo xaaladaas cuntada uu ka soomay Sheekh Mukhtaar ay ku keento ama xaalad kale oo la soo diristaba Sheekh Mukhtaar waxaan halkan ku cadaynaynaa in mas'uuliyadeedii uu dusha u ridan doono madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddiiba sidaa sheegtay uu guriga dhexda uga xiran yahay ama qolka uu ku jiro cuntadiina ka soomay dibadda waa u baahnaanaya ama salaata looga baahdo ha soo baxo ama suuliha u baahdo miyaanay dani kale ka lahayn oo banaanka u soo bixin marna mise waad xaqiijinaysaa inuu guriga ku xiran yahay uusan soo bixin oo xaaladiisa laga warqabin haddii guriga Sheekh Mukhtaar uu ku xiran yahay ama ku afduuban yahay aniga weligay ma aanan tegin siduu u dhisan yahayna ma ogi inuu suuli gudaha ku haysto iyo inuu banaanka ku haysto ma ogi wararka aan helay Xuseen waxay noo xaqiijiyeen in Sheekh Mukhtaar cuntadii uu diiday uu qolka soo xirtay kana soomay cuntada ilaa iyo shalay khamiistii ilaa saacadan aan kula hadlayo wixii ka soo kordha waan ogaan doonaa ilaa iyo hadda warka halkaas ayuu noo joogaa xageebo meesha ku xiran waa xagee wixii ka yimaadana madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dusha u ridan doona laguna xisaabtami doonaa maalinteeda xagee way meesha ku xiran Sheekh Mukhtaar Robow waxa uu ku xiran yahay magaalada Muqdisho ayuu ku xiran yahay gurigii saddexaad ayuu ku xiran yahay inta aan la socno markii 2018 laga soo afduubay magaalada Muqdisho laga soo afduubay magaalada Baydhabo aan dhahe gurigii saddexaad ayuu ku xiran yahay sida aan wararka ku haynana waa guri u dhow xarunta nabad sugidda Hawar Khadiija ay dhahaan ku taalla magaalada Muqdisho meel u dhow laakiin annaga weligeena ma aanan tegin cid noo ogolaatayna ma jirto in halkaa ku booqano waayadan waxaa aada u badnaa oo weliba xubno ka mid ah xigtada Sheekh Mukhtaar Robow noo sheegeen inuu socdo abaabul iyo qorshe la doonayo in lagu sii daayo Abu Mansuur maadaama la galayo doorashadii Soomaaliya adiga mar Allah hada idaacadana waxaa sheegtay inaanay doorasho dhici karin ilaa Baydhabo dib u heshiisiin laga qabto Sheekh Mukhtaar Robow la soo daayo marka tan ma laga yaabaa inay qayb ka tahay oo lalaha aad ku raadinaysaan Sheekh Mukhtaar la soo daayo oo aanay cuntadii ka soomin horta Sheekh Mukhtaar Robow wuxuu xaq u leeyahay inuu helo cadaalad xurriyadiisana dib u helo dhinaca kale abaabulka maaragtay la xiriira in doorashadu koonfur galbeed ay ka horeyso dib u heshiisiin way socotaa shirar waaweyn ayaa lagu qabtay magaalooyinka Baydhabo Muqdisho iyo Nairobi oo dadka reer koonfur galbeed ay uga arrinsanayaan in laga hadlo waxyaabihii dhacay sanadii 2018 doorashadii la boobay ka dhashay ka hor intaan doorasho la aadin oo doorashada baarlamaanka koonfur galbeed mudanayaasha ka soo galaya aan la aadin in laga hormariyo dib u heshiisiin waa socotaa hase ahaatee kooxda village Soomaaliya fadhida Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaaminayo iyo qolada koonfur galbeed diyaar uma ahan arrintaasi mar kale ayaan ku celinaynaa in doorashada koonfur galbeed ay ka horeyso dib u heshiisiin la dhex dhigo dadka deegaankaasi isla markaana dib xorriyadiisa loo siiyo Sheekh Mukhtaar Robow taa waa ku celinaynaa isla mana socdaan waa wax oo hadda soo ziyaaday waayo annaga ma ogin Sheekh Mukhtaar meesha uu ku xiran yahay loomana ogolaan inaan booqano laakiin tani waa abaabul iyo dadaal dadka deegaanka ay wadaan
muddo 4 sano ah ayuu afhayeen u ahaa al-shabaab xilligii uu joogay kumanaan dhalinyaro ah iyo shacab Soomaaliyeed oo ay askari ku jirto ayaa fikirkii al-shabaab ee xilligaas u geeriyooday, halka malaayiin ka tirsan shacabka Soomaaliyeed ay badeen dagaaladaasi inay ka barakacaan magaalooyinka ay ku sugnaayeen, iyaga oo qaarkood qurbaha uga soo gudbay halka kuwa kalena ay badeen dandaro, saxaraha iyo badaha ugu geeriyoodaan. 13 Diseembar 2018 ayay ciidanka Midowga Afrika qaybtooda Baydhabo kana soo jeeda dalka Itoobiya xireen Sheekh Mukhtaar Robow kadib khilaaf iyo muran soo kala dhexgalay dowladda federaalka iyo sheekha, taasi oo salka ku haysay doorasho markaas qabanqaabadeeda laga waday magaalada Baydhabo. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay oo ku jiray staafkii gaarka ahaa ee sheekha, kadib israasaaseen dhex martay ilaaladiisa iyo ciidankii Itoobiyaanka ahaa. Sheekh Mukhtaar ayaa mar hore ay kala tageen kooxda al-shabaab muddooyin badan oo uu gooni u daaq ahaa, isaga iyo dhalinyaro Kuhayba oo ay ku sugnaayeen magaalooyin ay asal ahaan ay kasoo jeedaan. Intaa kadib waxaa bilowday wadahadalo u dhexeeya dowladda federaalka ah, dowladii Koonfur Galbeed iyo Sheekh Mukhtaar Robow Abu Mansuur. Al-shabaab ayaa weerar ku ekeeyay goobaha ay ciidanka sheekha joogeen kadib markii ay ka war heleen wadahadalada isaga iyo dowladda u socday xilligaasi. Ugu dambeyn, maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda oo iskaashanaya ayaa ciidan iska caabina u diray sheekha si ay uga barbar dagaalamaan ciidamada sheekha oo al-shabaab uga difaacaan. Sheekha ayaa diyaarad looga soo qaaday goobtii lagu weeraray, kadibna waxaa la geeyay magaalada Muqdisho. Intaa kadib, sheekha waxaa laga doonayay inuu saxiixo warqado muujinaya inuu ka tanaasulay fikirkii ahaa al-shabaab iyo in ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda aysan wax qalada ka aaminsanayn. Sheekha ayaa bilaabay safaro dibadda ah oo uu ku tagay dalka Turkiga iyo meelo kale, kadibna dalka ayuu dib ugu soo laabtay, waxa uuna uga sii gudbay magaalada Baydhabo isaga oo shaaciyay musharaxnimadiisa ku aadan kursiga madaxweynaha ee Koonfur Galbeed. Dowladda Soomaaliya ayaa codsi u dirtay in sheekha marka hore uu dhammaystiro heshiiskii u dhexeeyay dowladda iyo isaga oo uu saxiixo waraaqaha yaallo magaalada Muqdisho. Si cad ayuu u diiday Sheekh Mukhtaar Robow, waana taas sababta loo xiray sheekha. Lamana oga ilaa iyo haatan waxa ay ka maagan tahay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Robow inuu sidii saaxiibkiisii hore Sheekh Xasan Daahir Aweys oo kale uu deegaan xabsiga u noqon doono iyo in kale.